السلام عليكم أصحابتا دمان وإذا السلام يا ميل كستو دنيا كجوكتان دنيا دافه إذا حدير جينا عافماد عمر الرجال عبادة سوبان iyo in la iskarab qabto like and share and comment in la siiyo in la caawiyo in la iskarab qabto maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamij yar oo kooban kaas oo yacni waxyaabaha aan arkay ah badanaa ama qurbaha joog ama wadanka joog waxaa jira markii dadka aad isku dhacdiin ama aad ismaagtiin in gabadha marka qofka isku dhacdiin oo kale isla markiiba qofka adiga kuma caynaayo wuxuu caynayaa familigaaga ninkaaga saas waaye ama cidaadu saas waaye ama kan ama kan yacni waxyaabaha aan la yaabay ay ka mid tahay waxaan u arkaa qalad in markaa qofka isku dhacdiin in aad familigiisa caysid asaga aflagaadaysid qofka hadduu nin leedahay inaa ninkeeda aflagaadaysid because wiilkan islaameed adiga waxba kaama garabsan gabadhaana isku dhacdeen beri gabadha waa heshii kartiin khilaafka waa dhamaa karaa yacni wiilka islaameedna weji kama aada dhigan oo waa isku dhacdeen aniga yacni waxaa soomaalida kala talinaya ama meel kastaa joogaan in haddaa qofka isku dhacdeen asaga shaqsiyan u caay inaad familigiisa aada cayn ama ehelka ha ahaato ama xagga ninka ha ahaato ama awlaadiisa ha ahaato dhaqankaas waaba u badannahaba inaan qofka asaga maba ataagayna waxaa la ataagaa familigiisa gabadha ninkeeda suu yahay saanu ninkaagu yahay ninkaaga kan waaye ninkaaga ama familigaaga saas waaye ama kan kale ana waxyaabaha waxaa u arkaa waxyaabo qaldan waana qalad in qofka asaga isku dhacdeen asaga iscaaya soomaalida meel kastoo aad joogtiin waa idin salaameynaa waxyaabo kale qurux badan waa idin soo wadnaa insha allah dhanka wejiga haddii ilaahay idmo oo kaaliska araga barnaamijyo badan waa soo wadnaa waxaan idinka codsanaynaa